kadib markii mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Somaliland ay si rasmi u shaaciyeen jaamacadda caalamiga ee Togdheer International University ay kala noqdeen ruqsaddii ay ku shaqeynayeen jaamacadnimo ayaa waxa arintaasi si adag uga jawaabay maamulka guud ee jaamacaddaasi Professor Ali Cashuur Xasan waa madaxweynaha jaamacadda Togdheer International University waxaana uu si adag uga hadlay arintaasi isagoo sidoo kale ku dhaliilay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland in aanay mas'uuliyiinta wasaaraddu wada socon sidoo kale Professor Ali Cashuur Xasan waxa uu soo bandhigay sharciyada jaamacadda isagoo sidoo kale ka qaadinay jaamacaddu aqbalaynin arintaas isla markaasina sharciga la tiigsan doonaan wana kan professorka oo ka hadlay arrimahaasi sida wada ogtihiin shalay oo taariikhdu ahayd 10 bishii afraad 2017 waxa war saxaafadeed warbaahinta laga sii daayay qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Jamhuuriyadda Somaliland oo kaga hadlayo in aqoonsiga kala noqday 3 jaamacadood oo runtii Somaliland oo ay ku jirto jaamacaddan Togdheer International University jaamacaddan Togdheer International University waa jaamacad la aasaasay 2011 waa jaamacad ay ka qalin jabiyeen 3 dufcadood oo isku xiga waa jaamacad imika ay ka qalin jabinayaan 5 bilood soo socda dufcadda afraad waa jaamacad ay dhigtaan arday 600 oo arday ku dhow waa jaamacad runtii ay ka hawlgalaan in ka badan 100 qof oo shaqaale waa jaamacad xagga tayada iyo xagga tamarta iyo xagga tacliintaba aan oran karno hormood bay ka tahay gobolka waxa la yaab noqotay oo u qaada waa noqotay runtii fajac keenay markii wasiirku uu yiri waxaan taageeray rusqad kala noqoshadii hay'adda tacliinta sare ee Somaliland ay kala noqotay jaamacadda Togdheer International University waxa la hubaa oo runtii marxaati madoona inay jaamacadda Togdheer International University tahay jaamacadda koobaad ee ugu tayada badan gobolka Somaliland insha Allah taala qorshuhu yahay inay ta koobaad noqoto jaamacaddu muddada ay jirtay aqoonsigeeda asaasiga oo dhan bay haysatay halkan waxa ku haya warqadii ugu horeysay ama waxay shahaadadii ugu horeysay ee ay hesho jaamacaddu markii la aasaasay bishii 9-19 2011 ay ka heshay isduuhii wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Togdheer isla sanadka jaamacaddu waxay heshay oo ay aqoonsigeedii sidoo kale ka heshay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare agaasimaha tacliinta sare ee waqtigaas Qadar Axmed Yariye صدقي بشي لبي طمناد لما كن إياه كوبيتون بدو كذب أيها واحد لابوري جديد التعليم سريع سوماليلاند جديد التعليم سريع سوماليلاند شهادة دي أيكو أقونصدين جامعة رنتي أديس أو مكان توغدير انترناشنال يونيفرسيتي يدون وطاس رنتي وحا شهادة سيشغينيسا مدة 4 سنوات waxaana dhici doontaa 2020 wasiirku shalay wuxuu yiri oo uu sheegay inuu ku qancay maxaa la yiraahdaa qodobadii ay ka soo gudbiyeen jaamacadda Togdheer International University gudida tacliinta sare ma jirto warqad aan taa ka ahayn oo soo gaadhay jaamacadda Togdheer International University oo ku saabsan maxaa la yiraahdaa awaamirta maxadka tacliinta sare oo jaamacaddu ama ay ka baydhay ama ay fili weyday runtii waxaan arkaa guul darro u soo yeesay Somaliland khalad iyo waxa weeyaan dambi laga galay aqoonyahanka iyo waxa weeyaan bahda waxbarashada Somaliland arrin runtii waxaan u aragnaa laab la kaca oo mas'uuliyad ku jirin oo degdeg loo galay 2017 bishii 3 inaan magacii jaamacadda bedelay waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare mudane Axmed Xuseen Rooble isla markaana aha ku simaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maadaama wasiirku safar dibadda ku maqnaa codsigii aanu gudbinay waxa uu wasiirku aqbalay 9 bishii 3 2017 codsigaas oo uu ku ahaa inaan magaciisa ka bedelayno oo aan magaca cusub qaadanayno ee wadaniga ee magacii gobolka Togdheer isagoo wasiirku arinta dareensan muhiimadeeda waxa uu na siiyay warqadii iyo ogolaanshihii runtii wareegtada noocaas ee ka soo baxay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare xafiiskeeda ugu sareeyay in haddana maalmo yar oo kooban xafiiskii tacliinta sare komishanka tacliinta sare uu yiraahdo waanu kala noqonay ruqsadii oo wasiirku waliba uu soo fadhiisto waxaan aragnaa arrin runtii aan mas'uuliyad ahayn arrin runtii lagu degdegay arrin runtii jaah wareer iyo qas iyo fawdo iyo nidaam xumo gelinaysa waxa weeyaan qaranka laba warqadood oo isku xafiis ka soo baxay oo haddana kala macna waxa iyaduna culays keentay oo xalay tolo iyaduna la yaab noqotay markii jaamacadda ardaydii oo imtixaan ku jiraan oo imtixaankoodu wata ciidan la soo abaabulay oo dariiskoodii xiran oo meel ay ka yimaadeen aan la garanayn ay jaamacadda galafeen arrintaas waxay keentay runtii
ama kaag waxay keentay in ardaydii loo cagajugleeyo waxay keentay in ardayda ay salbabaxaan oo ay kala si dibadda uga soo baxaan oo ay taxanaadkii ay gacanta ku hayeen kaga soo wada dhaqaaqaan miisaska ardayda jaamacadda dhigata horta maaha caqabadan intii horeysa soo wajahday maaha runtii arday fresha waa waaya arag ardayda waxaan leeyahay midnimo inoo balana jaamacaddiina waa dhiganaysaan sharci baa ku dhiganaysaan haddii go'aan aynu gaaraynana inagoo wada socono oo mida ayaynu go'aan gaaraynaa sharciga Soomaaliland baynu hoos joognaa sharciga waxa weeyaan wax wada lahaanshaha in hoos joognaa wax idin warwargeliyo oo idin dhibi kara ma jiri karo arintana waxa weeyaan inaga ayaa guuleysanayna gacanta sarna inaga yeelanayna waxaan soo jeedinaynaa runtii oo halkan ku sheegaynaa inaanu marti u nahay cadaalad waxaan codsanaynaa jaamacaddan standardkeeda in guddi madax bannaan loo saaro oo la qiimeeyo in laababkeeda la qiimeeyo in ardaydeeda la qiimeeyo in macallimiinteeda la qiimeeyo in maamulkeeda la qiimeeyo waxaan ku kalsoonahay oo aan aad u aaminsanahay in cid kasta oo qiimeynta samaysa ay ku qanci doonto nidaamka iyo kala dambeynta iyo aqoonta ka jirta jaamacaddan haddii ay wax naga xumaadaan oo dhici kartaa waxaan xaq u leenahay in la saxo وخالد بكيله فقانا رقو حرطة ستار تيفي برعو